kadib kulan aan caadi ahayn oo ay Muqdisho ku yeesheen madaxweynayaasha Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxda sare ee dowladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxaa laga soo saaray go'aano u muuqday midkii ugu halista badnaa ee uu qaatay madaxweyne Farmaajo tan iyo intii uu xukunka joogay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta ku dhawaaqay go'aan culus isagoo ay garabkiisa taagnaayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kala ah Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Duqa Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed. Rooble ayaa u muuqday mid difaacaya go'aanka madaxweyne Farmaajo, balse go'aankan ayaa Rooble qudhiisa saameyn ku yeelan kara hankiisa siyaasadeed maadaama uusan u muuqan mid u bisil go'aan qaadashada waqtigan adag ee uu dalku ku jiro. Dowladda Soomaaliya ayaana sheegtay in dalka ay ka dhici doonto doorasho isla markaana aan loo joojin doonin maqnaanshiyaha maamulada Jubbaland iyo Puntland. Hadalkaas oo u muuqda mid aan xal iyo xeerin toona aysan ka muuqan ayaa sii kala fogeynaya dhinacyada maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Dhanka kale waxaa iyaguna budo gaar u tuman ah midowga madasha musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo kol hore iclaamiyay mabda'ooda sheegayna in muruq, maskax iyo maal ay uga hortagi doonaan dowladda Soomaaliya haddii ay isku daydo in ay dalka ka qabato doorasho aan la isla ogolayn. sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo u muuqday mid dhexdhexaad ah ayaa fakarkiisa bedelay kadib markii uu gaaray magaalada Muqdisho, waxaana muuqata in cadaadis uu kala kulmay dowladda dhexe, balse Qoorqoor ayaa sheegay in uu kari waayay Axmed Madoobe iyo Siciid Deni iyo musharaxiinta mucaaradka, taasna ay qasab ka dhigtay in uu isaga haro waanwaantii uu ka dhex waday xal u helidda arrimaha doorashooyinka oo ay dhibaatooyin badan ku horgudboon yihiin. maanta uma ahan maalin wanaagsan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, waxaana god dheer ku sii dhacaya hamigii laga qabay in dib loo askumo nidaamka dowladnimada Soomaaliya. maxaa yeelay dowladda waqtigeedu dhamaaday waxa ay danteeda gaarka u adeegsanaysaa danaha qaranka, taasna waxa ay keeni kartaa dib u dhac ku yimaada hanaanka geedi socodka nabadda. madaxweyne Farmaajo waxa uu gebi ahaanba ku fashilmay mas'uuliyadii loo igmaday isaga oo kala qaybiyay tiirarkii dowladnimada iyo nidaamkii uu shalay xilka kula wareegay. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynihii ugu macangagsana kadib burburkii dalka soo maray, si uu xukunka mar kale ugu soo laabto darteed ayuuna isaga indhatirayaa wax walba oo xal u noqon kara xaaladda murugsan ee dalka ka jirta xilligan kala guurka ah. dhanka kale musharaxiinta mucaaradka ayaa si kulul uga hadlay go'aanka xukuumadda Soomaaliya ay ku sheegtay in ay ku bilaabayso hirgelinta hanaanka doorashooyinka oo wali muran xoogan ka taagan yahay. Ridwaan Xirsi Maxamed oo ah afayeenka midowga musharaxiinta ayaa ku tilmaamay go'aanka dowladda ay gaartay in uu yahay mid ay ku doonayso in ay ku boobto doorashada dalka. afayeenka midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed ayaana ku eedeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor in uu ka been sheegay waanwaantii uu waday ee la xiriirtay arrimaha doorashada. ilaa iyo hadda ma kala cadda waxa uu ka dhigan yahay go'aankan ay dowladda dhexe ay gaartay iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo doonaya in dalka ay ka dhacdo doorasho aysan qayb ka ahayn maamulada Jubbaland iyo Puntland. beesha caalamka oo ah isha dhaqaale ee ugu weyn dowladnimada Soomaaliya ay ku tiirsan tahay ayaa iyagu horey u sheegay in dowladnimada Soomaaliya qolo gaar ah aysan dhinac u leexsan karin, isla markaana aysan aqbali doonin doorasho aan la isku raacsanayn. shalay waxaa gooni goosad sheeganayay maamulka Somaliland, taas oo dhaawac weyn ku ah ummadda Soomaaliyeed, balse maanta madaxweyne Farmaajo waxa uu albaabada ka soo xirtay maamulada Jubbaland iyo Puntland, taas oo dib u dhac kale ku keeni karta rajadii laga qabay in Soomaaliya mar kale ay dib cagaheeda ugu istaagto. madaxweyne Farmaajo waxa uu muuqdaa mid moogan xaaladda dalku uu ku jiro waqti xaadirkan kala guurka ah, waxa uusan wali ku baraarugsanayn in 28 cisho kaliya ay kaga harsan tahay muddo xileedkiisa sharciga ah. haddaba daawada adiga maxay kula tahay? fadlan fikirkaaga inala wadaag, waad ku mahadsantahay daawashadaada.